عليكم مقعي وعنب مانتا challenge ayaan ii wadaa challenge-gan oo noqon doono ama ugu magac daray maalinteeda cagaaran my green day maanta waxaan cuni doonaa wax cagaaran waxaan cabi doonaa wax cagaaran challenge-gan wuxuu quseeyaa qof walbo adduunka waxa lagu mashquulay sidee nafsadeeda u horumariyaa sidee caafimaadkeeda u horumariyaa markii challenge-gan waxaan u arkay maadaama isbedel dad badan ay rabaan in uu bilawgii isbedelka ku noqon doono mid kale waxaan rajeynaa insha Allah challenge-gan in ay ka soo qayb qaadan doonaan dad badan oo ilaa ah asxaabteeda ula friendska dhinaca social media iyo dadka challenge gareyn doona maanta all youtuberada tiktokerada dadka social media dadka inta badan mas garanayna laakiin waxa jirto gabar aan darisnahay najo caraale challenge-gan diyaar ma u tahay adigan ka soo qaatay gabdhaha inta kalena uu idin furan yahay oo shimbiraha way dhaafeen qurux سأدولين كفائدة بال challenge-gan أصحابته flow garaysa ama maxallaha ku xiran dadka social media isticmaalo dhan ayagana waxaan leeyahay dadkiina challenge-gan ku taageeraya hashtag ayaan u samayn doonaa hashtagaas ugu magac dari doono maalinteeda cagaarka marka waxaan rajeynayaa in qof walbo isbedelkan ka wada qayb qaadano saakay sheekh madow ma cabin kafeena ma cabin green tea aan ku bilaabay marka waa kana haddana waxaa samaysanaysa ujeediin waa green juice rabaa inaan samaysto cabitaan oo cagaar ah wuxuu ka kooban yahay celery-gan iyo liin dhanaan iyo tufaaxa cagaaran saddexdoodana horta markii aad rabtid jirkaaga inaad nadiifisid aaday uga qayb qaadataa iyo inay jirka sunta ka saarto iyo weight loss qofka raba inuu miisaan iska rido qofka oo cholesterol haysto high cholesterol haysto cholesterolka waa lagu way yaraysaa sonkorta sidoo kale xanuunada ma aragtay dhiigkarka sonkorta wadna xanuunka xididada dhiigga ku dhaco waxaas oo dhan haddii aad la nooshay ay qabtid ama rabtid inaad ka hortagtid badso cabitaankan subax walbo ama 3 maalin week ugu yaraan cab waan kula talin lahaa mar walbo ka fogo sonkorta way ku dishaa aniga booska waxaan isticmaalay malabka xataa waa macaan ha badsanin asaga xataa yaree wakana celery ama green juice ka sameeyay oo ka koobnay tufaax celery-ga liin dhanaan qashinka ma ka kala miirin aad u macaan yahay soo tijaabiye ka warkeena cuntada inaa sawiraaji jeclaha mar walbo instagram-kayga dhaxiisaynaysa sawirada guriga imaade hadeertan galab ay noo tahay dhaqso mugdiya noqotay daaqada idin tuso marka hadda waxaan samaysanayaa qadadii waxaan ku qadaynayo iyo maalinteeda cagaarka la socda xagan waxaan ku karinayaa cambuurada cagaarta waxa kale ayadana rabaa inaan samaysto zucchini fries markii aan soo dhameeyo ayaa arki doontiin iyo qadadeyda la socda
haddana waxaa isku soo diyaarsaday digirtii oon kasoo sameeyey salaad ahaan usoo sameeyey oliven iyo filfil iyo liin iyo kusoo daray saxankana ku shubanayaa wax markii la qurxiyay indhaha ay u roon yihiin way macaan yihiin waqtiga marka xogo tartana u yeerayaa iyo waxa soo saartay fries sukaniga aan samaystay isagana saxanka waa kana u jeedin si qurux badan yahay daal badan axada badan aan dadku waxa ahay weekend ee dareemaya marka si fiican u seexanayo badana axad waa daalna shaqada ama maanta alxamdulillah energy gaan gadaal aan kala qaybsan doonaa energy aan ka helay cagaarkan iyo sida aad dareemayo oo daacad ah sida ahaan jiray iyo laakiin maanta saa dareemaya haddii markaa daalna wax samayn jiray inaan kafe badan isku dadaalo saa usoo jeedo hurdiga qabanay caajis inaa maxaa la dhahay shaah badan cabo inaa maanta dhan dhaxan ahayso fanaanad gashnaado laakiin saak markaan green salariga ku quraacday ku bilaabay shaaxa oo green teaga cabay horta caloosheeda wax oo qasnaan ka dareemin maxaa dhacay kafeega iyo waxyaabahaas waxaa laga yaabaa hurdada kugu yarta mar walba dadka isku mid maahan caloosha sensitive dadka laha ahay caloosheeda mar walba hurdada markay ugu yartahay way xanuuntaa marmar waxaa laga yaabaa wadnaha xataa inaa ku garaacayo mise aad dareentid markaa kafee badan cabto aad waxaa la hurdin oo daalkaa bate laakiin greenkan waxaan maanta cunayo mise cagaarkan way ka duwan tahay calooshayda faa'iido badan ku dareentay number 1 u mahad celisay maanta anigoo saa idiin sheegay maalina siin ay ahayn hurdada ugu yar tahay haddana firfircooniya dareemayo waxa aan maanta qabtay tiradooda da idiin soo tiriyo saacadan waa stuur lahaa seexan lahaa guriga markaa imaadana waxaa duubooya waa kana intaa sameynaya weli ilaa caawin aad la qaybsadaa rabaa wax walba si kan walba sameynaa wax markaa duubaysidna easy maaha qof walba ma oga laakiin aniga easy bay ahaa inaa sometimes waxna duubo waxna kariyo maantana inaa idinla qaybsado waxaan cunaayo wallaahi waxay ii tahay maxaa dhahaa inaa dadka walaalahay ku dhiirigeliyo past days marka aniga gadaal isku fiiriyo kale waxyaabaha sameyn jiray qofka number 1 waxa la dhahaa waxa uu barto noloshiisa inuu ku bedelaa kadib dad wax qaban kartaa marka challenge-gan wallaahi waa challenge aan ku qiimeyn doono dadkeena intay daneeyaan oo kale caafimaadkooda number 1 in maxaa la dhahay wax cusub inaa samayn karno oo nafteena maalin control samayn karno kale maanta inaana jadwalka ka bixin oo dhaho maanta green kaliya ku noolaana wax cagaaran bis cunaa caba maanta xogow wax adag u eg tahay laakiin haddana wax adag ma aha maxaa dhacay wax walba tijaabo waayo matcha qofkii aan hore u cabin ama hore u arkin ha googleeyo ha raadiyo faa'iidooyin badan uu leeyahay kafeeyada waa ka cabay laakiin weli guriga kuma soo galanin markii koowaad oo soo gatay waayo waxa laga yaabaa qaali waayo price-ka waxa idin soo saaray dhinaca waa arki doontiin Norway marka kana aniga sameysanaya caawa kafee iyo shaah iyo waxaas ma cabaayay sidaas uu eg yahay bulfarka marka dhadhankiisa sida u maleynaa horta ma noqon wallahi iska macaanay waana wax caafimaadku fiican faa'iidooyin badan oo leeyahay googley
snacks ka cunaya xataa waa cagaar bacda waxaa idin soo dhigaya sawirkeeda waa gluten free waxaa ku jira waa tortilla chips kale iyo spinach uu ka kooban yahay aadna uu macaan dhadhankiisa waa ka helay adiga muhiimada waxa waaye waxa aad jeceshaa soo gado kaliya challenge-ga inaa wax cagaaran cuntid kaliya waaye marka soo fadhiisatid oo relax dareemaysid oo wax kula cabaysid oo banaanka qabow jiro oo maalintii dhan daalkeedii aska ilaawdid alxamdulilah I'm so happy inaa maalinteedii ugu talagalay maalinta cagaarka inay si qurux badan healthy igu dhamaatay anigoo alxamdulilah caafimaad qabo ka caajisin aad u faraxsanahay marka wallahi waxaan rajeynayaa waxa iga farxad badnaan lahayd markaan arko sida ay dadka ila soo challenge gareeyaan anaga xogo yar waxaa moodaa dhinaca caafimaadka ma ku dadaalno laakiin wallahi caafimaadka inta aad haysatid dareemi kartaa markii xanuun kugu dhaco kadib ogaan kartaa waxyaabaha horta maalintan aan u sameeyay green day-ga ama maalinteeda cagaaran detoxing barnaamij oo nadiifinta jirka Soomaali ku sameyn jiray ama sameeyay laba rabadaankii hadda ahay iyo rabadaankii aba YouTube-kan bilaabayba oo 20-gii marka barnaamijkaas wallahi aniga dhinacayga wax badan aan ku faa'iiday qofkii daneynayo uu soo fiirin karaa dhinaca weight loss haday noqoto haddii ay noqoto dhinaca ina energy rabadaanka u helo isbedel badan oo caafimaad ku helay hadartan maalintan cagaaran waa maalin ayadana jirka nadiifintiisa ma aha waxyaabo oo kaliya aan hadda maanta ma cunin oo jilicsan oo cabitaan smoothie iyo shurbada iyo waxaas aan maanta ma sameynin detoxing marka la sameynayo taas muhiim laakiin haddana qaabka maanta wax u cunayay waa waxyaabo jirkeyga nadiifinayo antioxidant badan ku jirto jirkeenana mar walba sun aan uga imaato environmentiga dhinac walbo waxaan ugu hareereysan oo dhan ay sunka imaata stresska ha noqoto hawada ha noqoto warshadaha cuntooyinka hadaastan wax walba waa lasoo duraa cuntooyinka aad cunaysiin si kalara qurxan loogu sameeyo waqti badan u taalo waxaa ku jirto wax walba staff waa ku jirto staffkaas oo hadhowda adigana saameyn caafimaadka ku yeelanaysa oo jirka sunka marka jirka qofka bini'aadanka mar walbo sanadkii ugu yaraan in uu mar nadiifiyo aad ay muhiim u tahay hadeertaan cagaarkan daarad waa ku nadiifin kartaa soo smoothie iyo shurbada challenge waa ka dhigan kartaa waxa rabtid oo cagaaran adiga dooranaysid aad sameyn kartaa marka walaal waxaan rajeynayaa insha Allah barnaamijkan inuu barnaamij noqdo successful insha Allah dad badan ay iga soo mahad celiyaan hobkaas haystaa marka waan kusoo challenge gareeyay oo kusugaya aad ayaan kaga mahad celinayaa waqtigiina asxaabteyda dadka igu xiran dadka aan hore ii arag ama i garanaynin magacayga mar labaad waa Canab waxaan rajeynayaa in janarkan aad ku support garaysid sidii oo dadka loogu dhiirigelin lahaa maanta waxaa aaminsanahay adduunka wuu isbedelay caafimaad xumadii soo badatay dadkeena waliba aad waxaa ugu badan xanuunada sida sonkorta dhiigkarka kaliya inay fadhiistaan waxyaabo badan marka waxaan rajeynayaa in janarkan dhiirigelin ayaa loogu sameyn doonaa dadkeena qaasatan hooyooyinka gabdhaha wiilasha cid walbo iyo inta xanuunsan oo talooyin u baahan way soo weydiin karaan ayagana Instagram-ka dhinacooda oo dhinaca cuntada isbedel rabaan